wiilkii qasqaska ku qaaliyeeyay qaranjooyinka midabkooda dooriya si ay u qurxanaadaan isnaashnaashaha iyo isnuuriyaha weyn ayaa lagu eedeeyay labalabuuf laga roone laga maceystay xoolo xaaraana ku bedeshay dhulkiisa halista kolkii uu sheegay inuusan dumarka Soomaaliyeed dooq damac iyo dareentoona u hayn waana midda shakiga gelisay raganimadiisa hadda waa maxbuus xabsiga liinta kula cabaya gariiraaye oo ay xorriyadda ka qaaday dowladda Soomaaliya sirdoonka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay Ashraf iyo xariif kale oo xumaan ku shuraakoobay xayndaabka ajaanibtu ku badan tahay ee xalane ninkan u jiljilcsan una jalaqsan sida dumarka ayaa looga shakiyay inuu yahay laga roone bidixda ka laafiyooda oo ay maalgeliyaan kuwa shayaadiinta caabuda iyo shakhsiyaadka shariirka ee shilimaad dartii u sameeya dhaqamada ka baxsan sharafta iyo shareecada islaamka bulshadu way ka boosan tahay wiilkan waxaana u muuqday ififaale maqnuudnimo inay u hursan yihiin laakiin hooyada dhashay Sacdiya Macallin Cilmi ayaa bari yeeshay wiilkeeda baariga waxay sheegtay inuu yahay wadaad xaafidul quraan ehludiina oo toobada alle waafajiyay iyo jaamici xumaan ka dheer lacaga badanna ka tabcada xayeysiinaha ganacsi ee uu sameeyo balse raayul caamka ayaa ka awood badan oo aaminsan in wiilkeedu ku xirtay laga roonayaasha LGBT dowladdu waxay leedahay far ayaa ku godan baaritaano ayaa wadnaa xanala ka warsugo bishaaro waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad faca ku dhaafi karto faqrigana aad kaga bixi karto haddaba ma ku nooshahay wadamada qurbaha si aad maamulaha Soomaaliyeed ugu sareeyo shirkadda Forever Living xiriir ula samayso fadlan la xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaga muuqda lacag ka badan $10,000 ayuu maalintii qarash gareeyaa waxaana qaatiyaan ka istaagay goobaha qasqaska lagu iibiyo waana sababta ay dowladdu u baarayso halka uu ka keeno lacagaha xad-dhaafka oo ay adag tahay inay dhalinyarada faciisa sanad gudihii soo gasho wuxuu diiday inuu daayo habdhaqanka xaawaleyda sida isnuurinta xad-dhaafka ilka noocaanka aalada dhalinyaradu ay ku jabtay ee TikTok-ga ayaa viral ama trending ka noqday internetka maalmihii ugu dambeeyay wuxuu si dhab ah u rumaysan yahay qasqaska badso aad qurux badnaatide adeegyada qurxinta maqaarka aadamaha ee skin care-ka loo yaqaan ayuu qabatimay wuxuuna dhalinyarada jiilkiisa ku dhiirigeliyaan inay isu kala kiciyaan sida isaga oo kale iskana daayaan adayga iyo dhaashi la'aanta dhowaan ayay ahayd markii lala yaabay waraysi uu siiyay Kobac Podcast kaasoo uu ku sheegay inuusan dooq damac iyo dareentoona u hayn gabdhaha Soomaaliyeed waxaana bulshadu ay u kala qaybsantay kuwa ku tilmaama laga roone iyo kuwa difaaca raganimadiisa waa Maxamuud Cali Nuur oo magaciisa afgarashada internetku yahay Ashraf laamaha ammaanka ayaa xabsiga dhigay kadib toddobaadyo oo internetka hadalhayn ka abuuray garoonka diyaaradaha aadan cadde isagoo uga tallaabaya qaybta xalane ayaa la sheegay inay su'aalo weydiiyeen ciidamo ka mid ah hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka wuxuuna 4 habeen ku hoyday mid ka mid ah saldhigyada gobolka Banaadir laamaha ammaanku waxay baarayaan xaqiiqooyinka iyo xogaha ku saabsan raayul caamka bulshada iyo halka uu ka keeno lacagaha xad-dhaafka balse hooyo Sacdiya Macallin Cilmi oo waraysi siisay wariye Munasar Maxamed ayaa sheegtay in wiilkeedu uusan wax dambiye lahayn balse loo quuri waayay lacagta uu haysto waxay sheegtay in wiilkeedu uu dhowrsoon yahay uuna ka mid yahay dhalinyarada aadka u jecel inay dalxiisaan nolosha uu internetka ku soo bandhigana badankeedu ay tahay khiyaal iyo malaawaal uu ku doonayo in dadweynuhu ay ku daawadaan qiyaastii qofkan Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay qursiga gabdhaha Soomaaliyeed ma laha meel loo qaado iyo qaab loo qaado qorshihiisa nololeed ee qasan fursad ganacsi oo dahabiya ma ku nooshahay Yurub USA ama Canada ma ku daashay shaqada xamaalinimada waxaan ku haynaa fursad adoo gurigaaga jooga aad lacag badan uga samayn karto shirkadda Forever Living ku soo biir teamkeena oo hel taageerada manager Cusmaan ahna qofka koobaad ee Soomaaliga ee abaalmarinaha ugu badan ka helay shirkaddan fadlan ogow diiwaangelintu ma aha lacag laakiin shirkadda alaabteeda ayaad ka shaqayn doontaa waxaadna helaysaa fursado kale oo suuqgeyna ku darso khibrad iyo aqoontoona kuma xirna guusha ganacsigan manager Cusmaan number 1 Somali Forever Business Owner ayaa ku siin doona aqoonta iyo tababarada aad u baahan tahay haddaba tiradu waa ay kooban tahay waqtiganna waa xilliga shirkadda dadka ugu badan ee ay ka faa'iideystaan haddaba kala xiriir nambarada WhatsApp ee shaashada kaga muuqda